waalid ma ogtahay jiilka la yidhaha Gen Z inay yihiin jiilka ugu caadifada badan ugu emotionka badan marka la eego jiilasha ka horreeyey caadifadoodana waxaa keena waa jiilkii u horreeyey la dhashay internetka sidaa darteed awaadiftooda way fara badan tahay waxay connected ku yihiin dhacdooyinka adduunka ka dhacayo dhan waxaad arkaysaa Gen Z-gu waa jiilka u badan ee dhaqdhaqaaqa Black Lives Matters ugu badan ee soo baxa u dagaalama waa jiilka reer Gaza u soo baxa ee u dagaalama caadifadu waa shay islaamku ammaanay inaan la tacaadufno agoonta masaakiinta iyo dadka laga dulmi badan dadka la dulmayo dhan laakiin subxaan allah caadifadoodaasi dhanka kale waxay geyn kartaa waalidow waxyaabo diintooda lid ku ah waayo caadifadii waxay keentay inay la tacaadufaan qoomuluudka subxaan allah 2022 daraasadda Pew Research waxay sheegaysaa 58% Gen Z-gu inay yihiin jiil aaminsan in bulshadu ay aqbasho waxa la yidhaha homosexuality ama waxaan ka maaragtay qoomuluudka inay aqbasho caadifadoodana dhanka kale la aadayso waxaad ka akhriyi kartaa buugta Anxious Generation ee Dr. Jonathan Haidt uu qoray ama Professor Mary Lynch buugteeda Generation Me buugga la yidhaha dhammaan buugta waxaa arkaysaa inay jiilka ugu caadifada badan laakiin waxaan tilmaamaynaa waxa weeye caadifadu marra way khayr badan tahay oo agoonta masaakiinta iyo dadka laga gardaraya markaad u caadifoonayso eed u heelinayso laakiin jiilkan waxay la aadaysaa mararka qaarkood dhanka kale oo ah inay diintooda dhaawacdo muuqaaladan iyagoo faahfaahsan waalid waxaad kala socotaa janaalka adiga lagu sameeyey ee la yidhaha Waalid Legacy oo YouTube channelka ah jazaakum allah khairan allah awlaadana xifdiyo Waalid Legacy, it shines so bright, a rising star in the endless night. From roots so deep to skies so high, our name